بسم الله الحمد لله رب العالمين maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena 19aad ee ku saabsan pharmacology-ga waxaan kusoo jirnay penicillin groups ayaan kusoo jirnay antibiotics-ka ahaa waxaan ka hadlaynay cephalosporin-ka waxay leedahay drug consideration wax la yiraahdo in daawadan si fiican loo ilaaliyo oo loo fiiriyo isha lagu hayo infuse over 30 minutes unless otherwise indicated daawadan waxay jirka ku galaysaa 30 daqiiqo markii qof la siiyo kala they should be continued after for at least 2 and 3 days after symptoms of infection have disappeared qofkan waxa loo baahan yahay daawada markuu qaadanayo inuu 2 ilaa 3 maalmood ka bacdi sii qaato markii calaamadaha ay ka baaba'aan cudurka laga daaweynayay assess clinic with a history of hypersensitive reactions bukaanku waxa weydiinaysaa inuu xasaasiyad ku qabo for penicillin or cephalosporin hadii uu ku qabo ka joojinaysaa assess clinic financial sidoo kale bukaanku waxa fiirinaysaa inuu yahay qof iska bixi kara dhaqaalahan. These drugs are usually expensive badana daawadan waa qaali marka hadii uusan iska bixi karin oo kala daawooyin kala uu bedelaysaa and if a GIT upset occurs hadii GIT upset occurs haduu dhaco kala ama qofka GIT uu ka jiran yahay kala administer drug with meals cunto ku sii qofka daawada should be administered on ambient hadii qofku markuu daawo cunto lagu siiyo kala oo problem ku arkayo should be administered on ambient stomach waa in la siiyaa asagoo baahan obtain liver and renal studies waa in sidoo kale kaliisi iyo baarabeerkiisa oo la siin haduu ka jiran yahay kaliya beerka example waxa kamid ah daawooyinka marka hadlayno cephalosporin daawo la yiraahdo monohydrate treatment-ka waxa la yiraahdaa cefalexis ama gefalexis ay leedahay class name waxay ka tirsan tahay antibiotic ahaan cephalosporin ay ka tirsan tahay past generation gulibka usage-ka loo isticmaalo waxay tahay respiratory tract infection oo ah sabab dhiska neef-mareenka cudurrada ku dhaca skin maqaarka bones lafaha and GU oo ah gonaturia oo xubnaha taranka infection ku dhaca side effect-ga leedahay waxa kamid ah nephrotoxicity oo inay qofka kaliya waxay u geysato jaundice inay keento kala qofka ay ka soo baxdo cagaarsho ahaan ma aha laakiin maxay inay calaamado ka soo baxaan kala ama ay keento baylka uu xirmo qofka waxyaalaha cudurro la xiriira beer ku dhacaan dosage laga qaadan karo capsule iyo markay tahay sharoobo iyo tablet inta markay tahay 200 ilaa 500 mg ee laga qaataa cephalosporin ayaa jira cephalosporin sodium ayadana treatment ahaan waxa la yiraahdaa cafeolin classic waxay ku jirtaa antibiotics cephalosporin ay kamid tahay waliba MB ahaan markaan fiirino macnaha waxyaalaha muhiimka la rabo in la fiiriyo waxa waa poorly absorbed for IgT GIT si fiican loogu soo nuugi karo must be given bilateral waa marka qofku uu ka qaataa xidid ahaan u qaataa dosage-keeda deep IM badana IM ayaa laga qaataa iyadoo waliba si saaid loo gudaha loo gelinayo or IV 500 mg 1000 mg bisinayo UC cefalexis markaad rabtid inaad usage-keeda ogaadin maxaa ka fiirinaysaa cefalexis wixii loo isticmaalo oo kala ama cefalin-kaas ay ku qoran tahay pamphlet-keeda waa antibiotics cephalosporin ayaa jirta cephalosporin ayay treatment waxa loo yaqaanaa cephalosporin classification antibiotic waxay kamid tahay antibiotics cephalosporin ku jirta second generation waa waliba usage-ka waxa loo isticmaalaa toxemia dhiga xanuunka infections of upper respiratory and lower respiratory infection ku dhaca dhiska neef-mareenka qaybta sare ku hoose GIT ahaan way ku dhacdaa urinary tract infection way ku dhacdaa oo habdhiska qaad mareenka skin infections-kana waa sidoo kale ku dhacdaa waa lagu daaweeyaa capsule ahaan iyo oral intaba loo qaataa 200 asagoo maybe double it in case of severe infection waxa macquul marka in la sii siyaadiyo cabirka hadii infection-ku uu saad yahay for adult dadka waaweyn dadka yaran 20 mg ayaa laga siiyaa iyadoo 3 qaybood loogu qaybinayo specific drug concentration waxyaalaha ay qaaska waxa kamid ah the suspension should be refrigerated waa in flinjeer la geliyaa after consumption and discarded after 2 weeks markii la qaso ka bacdi waa in la geliyaa hadii 2 isbuuc ay taalan waa in la iska daayo oo la sii isticmaalin cephalosporin ayadana waxay kamid tahay groupkan magaceedu waxa la yiraahdaa treatment ahaan waxa la yiraahdaa Cefenex waxa la yiraahdaa Sinaxif ama Sinat class antibiotic ay ka tirsan tahay cephalosporin ama second generation ay ku jirtaa waxa loo isticmaalaa polio ama waxa loo yaqaano pharyngitis oo kala oo qofka in dalqada xanuunta kala ama tonsillitis infection ku dhaco upper respiratory tract infection oo kala bronchitis oo kala waxyaalaha respiratory disease kale loo isticmaalaa IM ayaa laga qaataa IV pneumonia sidoo kale loo isticmaalaa urinary tract infection loo isticmaalaa osteomyelitis oo infection ku dhaca lafaha waa loo isticmaalaa meningitis oo saxgaraadka septicemia oo qofka infection uu dhiig ka galo loo isticmaalaa sidoo kale OB prophylaxis oo kale loo isticmaalaa qofka operation-ka inta lagu sameynayo kala si looga ilaaliyo infection qalliinka hore loo isticmaalaa decrease in HB waxay hoos u dhigtaa HB-ga hematocrit-ka sidoo kale macnaha RBC waxa ay yareynaysaa dosage-ka waxa laga qaataa 200 ilaa 500 mg ilmaha yarkan waxa la siiyaa 125 mg IM iyo IV inta waa laga qaadan karaa severe infection hadii uu jiro
intaas iyo cashirkeenu ku eegaya maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Xoogaa waa cashirku badan yahay laakiin macnaha wuu ku kooban yahay marka waa kaasaa